qodob hadalkayga inaan badiya ma rabeen mid waxaan kula hadlayaa dadka isbedel doonka midna waxaan kula hadlayaa maamulka midna waxaan kula hadlayaa ugaaska iyo beeshiisa iyo dadka ka maqan waxa aan ka aaminsanahay isbedel doonka waxaan kula hadlayaa dadka isbedel doonka oo ilaahay baa idin abuuray nin noolaanayana ma jiro nin aabihii nool yahay ma jiro nin hooyadii nooshahay ma jiro adiguna geeri baad ku xukuman tahay dadkan intay idiin humbaaleeyaan oo cagaha dhulka idinku dhuftaan aad ka cabsanaysaan ilaahay baad addoommo u tihiin ilaahay caabuda oo dadkaad ka cabsanaysaan iska daayo maseerkiina caddaysta maamulkana hal baan leeyahay horay baan oola hadalay markii koowaad markii labaad markii saddexaad markii boqolaad markii kumaad baan maraynaa waxaana leeyahay dhig buuxiyaan dhawaa uma maqlaan ani yar ku darsada halkaa nin baa dhurwaa la coloobay intuu halka dilay marka wuxuu yidhi waxaad iga ogaataa dhurwaa meeshaan kugu arkay inaan kugu dilaa maalinta dambe dhurwaa hal intuu ka dhargay garab fadhiyo u imaaday oo aayar hilibkiisu u cunayay seexday markaasuu intuu waran la gaaday buu ku qadbay dhurwaagii baa intuu kor u firiyo oo yidhi oo wuu calacalay wuxuu waran ku dhacdo wuu calacali wuu ku dhaato wuxuu yidhi dhurwaayo adaa dilay hasha ibaha toosnayd ama waa itaalkoolxuma weyna adeerka ama aabbaha baa dhalo odaad wadaagtaan arxanimo sideed iga sii waad uur garan bu anu ka gaban maayo nimanka maamulka ee axmed madoobe u weyn yahay waan isuur garanayna waxaynu u sameeyeenna way ogyihiin way hadda wadaanna way ogyihiin kana qaadan mayno annaga muxuu ahaa kursi xaaraan lagu qaatay intuu naga gadno inna lagu maamulo qaadan mayno horeyna waan u diidnay haddana waan caddaynayna maamulkana intaasaan leehay dadka kale Soomaaliyeed ee meesha fadhiya raala iga ahaadaan cawliyahanna hal baan leeyahay cawliyahana waxa idinka maqan niman wasiir inoo ahaa oo inaga aan wasiir ka dhiganay oo moodayay inaan wasiiradii haddii ay Axmed waayaan ay waayahayaan qabiil bay wasiirada ku heleen qabiilkoodii bay u joogeen qabiilkoodii wasiirada ka dhaxeeyaan ku soo noqdaan ama nimanka dhaqanka lagu sheegay anagu dhaqan nagama maqno cawliyahan waa la isaqaanaa bah iyo boqor buu leeyahay dadka lama muruqtuujiyo inuu Axmed Madoobe ina Cali Sokor u xareeyay Maxamed Suweer annagana shal sultaan noo xareeyo inaan dhimanaa nooga fiican annaga sultaanka anaga waa la yaqaanaa webiga markii la soo gooyay hal sultaan baan leenahay inta kaleeto waa anigoo kale kii nabadoon boocbooca iyo kii nabadoon la doortay anigoo kale wey shanta nin ee suldaamadeena loo xareeyey wiilal cawliyahana weeye intaa cawliyahanimada waan u ogolahay laakiin suldaannimo naguma mateli karaan ugaasnimo naguma mateli karaan nabadoonnimo naguma mateli karaan mid ayaydii mid ay noqotay xataa kuma jira iska badaa mida aabihii noqday cawliyahana marka dadka idinka maqan waa wasiirada ballanqaadka ila qaada inaan wasiirnimadooda ku celinayno jeebka Axmed ayna ku jirin jeebka cawliyahan ku jirto guud ahaanna dadka Soomaaliyeed ee isbedel doonka oo Ilaahay ka cabsado ninkii dhinto guri meesdo biyo matiida inuu baa ka soo haray anu caawa maanta hadii la dilo geerideedu xalaal weeye 12 ilmood baan dhalay nolosha maxaan ku sifalay 45 sano waan jiray wara cabsanina cadaysta masayrkiina waxa aad wada leediin waxa xaq u qaatana kula shaqeeyo waxa xaq darro ku qaatana ka diida maamulka waliba waxaan u sii raacinayaa dad guddi baan dhisnay haddaad samaysaan muxuu ahaayay baarlamaan baan samaynay haddaad madaxweyne ku dhawaaqdaan mid baan ku dhawaaqaynaa hadda maxaan kala qaadaynaa dadkuna way naga dhexeeyaan